waftigan ka socday qaramada midoobay ee soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa booqday duleedka magaalada Kismaayo iyagoona halkaasi soo indhaynayay dadka ka soo laabtay xeryaha qaxootiga dalka Kenya goobaha looga dhisay duleedka magaalada Kismaayo. waftigan oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan madaxda Jubbaland ayaa booqday guryaha halkaasi laga sameeyay iyadoona ay qayb ka ahaayeen booqashada ardayda dhigata iskuuladaasi oo ka soo laabtay xeryaha qaxootiga. ugu dambeyn waxaa si wada jira shir jaraa'id oo qabtay guriga badda ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam iyo Filippo Grandi oo u sareeya hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhanka qaxootiga ee UNHCR. It was a courageous decision to come here, but actually it was not very courageous because I trust you and your. waan ku faraxsanahay inaan maanta soo gaadho magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana inta badan la shaqayn doonaa laamaheena kala duwan ee noo qaabilsan gudaha Soomaaliya ayuu yiri mas'uulka ugu sareeya hay'adda qaramada midoobay asagoona carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay ka walwalsan yihiin dhibaatada ka haysata dhanka abaaraha taasoo xagal daacinaysa wax kasta oo qaramada midoobay ay sameeyso oo dadaala ayuu yiri Filippo Grandi. madaxweynaha Jubbaland oo dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa hoosta ka xariiqay in si weyn uu ugu mahad celinayo waftigan ka socday qaramada midoobay ee soo gaaray magaalada Kismaayo. Soomaaliya qaramada midoobay qaabisaniyo suuqa qaxootiga Soomaaliya ambassador wakiilka UNHCR iyo gabadha u xafiiska Soomaaliya ee qaxootiga فعلا يوم شلي سومر عاصمة الصومالية مقدشة لنا سوكم من مدحوينها يرجع وزارة الجمهورية وحا ما انت هالكانوا سومر وحا المهمة دا قحوتي هيدا قحوتي ولا هذا قبل كانوا ماشي قحوتي وهو بدن ايه فتاني كسر نقرة كذا بس انت تشوفوا بدن كسر نقرة تصور واحد مهمة قارة إن هالكان سومر وإن لكل مان بالديانك iyo qaxootiga soo noqonaya xaaladdiisa iyo kuwa kale soo noqon doona si loo manage gareyn lahaa waxay furi doonaan ay hadda sii marayaan guryaha loo dhisay dadka soo noqonaya waan uga mahad celinayaa iyaga iyo intii ka qayb qaadatay iyo dowladda Soomaaliya la tirtiro qoyska badan ee gelisay arrinta qaxootiga inay mid dhasho commissionerka iyo waftigiisa kaasaan uga mahad celinayaa waxaan rajaynayaa inay noqon doonto booqashadii ugu horeysay booqashooyin badan oo kale oo leebarka inta leegna ay iman doonaan gaar ahaan ku amniga iyo xuseeyana inay iman doonaan waxaana ku soo dhaw commissioner qaramada midoobay ayaa dadaal ugu jirta sida Soomaaliya mar kale ay ugu istaagi lahayd cagaheeda balse waxaad moodaa dadaalada socda inay yihiin kuwa gaabaysa oo aan u soconin sidii loo baahnaa. Maxamed Sahal Umar Maxamed Gacmadheere raadiyaha iyo TV-ga SBC magaalada Kismaayo.